hoos ku daga hadana ka guura meel hoos ku hadana ka guura war isu ka qaban mayse siday u kala muhiimsan tahay intaad fiiriso waxaad fiirisaa un xageed diintaadu ku badbaadaysa inta kaliya fiiri xageed diin ahaan roon hatta hadii 100% aad diinta weydo meesheeba roon fiiri gaalada la degideeda waa taa laga dayriyay quraankuna waa ka dayriyay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi markuu dhul helay hijrad waa kii la yiri saxaabadiisana waa loo diiday inay gaalada ku dhex noolaadaan xaaladaas oo kale markay timaado muslimiintu ay mahjar helaan meel ay u hijroodaan ama dhulku isu dhaamay helaan waa laga marman waxa kamid ah muwaalaadka gaalada waxa kamid ah inaad madaahibtooda qaar kamid ah afkaartooda aad saxdo oo u doodo oo ay kula qumanaato waxa kamid ah in aad intaad soo raacdo muslimiinta la dagaalanto intaad soo raacdo oo garab ka dhigato inaad muslimiin ku soo duusho la dagaalanto taa iyadoo waa xaalad kufri iyo gaalnimo ah iyadoo xaaladaasi waa riddo waay wadaadada qaar baa dabcay inay wax u lusluusaan wax u raadiyaan oo yiraahdaan maya xogaa kursi baa haya mooy ruux ma gaaloobin kursi doon weey sheekh kada dadka khawaarij aan noqonin iduu wuxuu ku leeyahay maya meesha waxa gashay de sidii laysu haystaybay meesha la gashay iduu wuxuu ku leeyahay maya waa jaahil war waxaasi wax jira ma kullu dalika wa haqiiqa jiru warka in si dhab loo qaata wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in la dagaalamo iska dhaafi meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa istiidaan la weydiin maayo dilkiisa idan laga weydiinay ma jirto ilaahay baa fasaxay subhanahu wa ta'ala in la dil karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kala loola dhaqmayo bal sida uu leeyahay Sheikh Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah gaalada asliyiinta ayaga ka daran buu leeyahay gaalada gaalnimadu asalka ayaga ka daran ahkaamtu xuduuday ka dajisayna waxa ka daran murtadiinta ahkaamta laga dajiyay ba aad uga adag ahkaamta loo dajiyay gaalka asalka inaga laakiin dhibaatadana Soomaalida wax weey maqaayista inaga khaldantay baa waxa kamida in la yiraahdo Soomaaligu ma bagaaloobo waa Soomaali baa lagu leeyahay waa Soomaali sheekh oo waa inay hebel oo محمد يا فرح ومحمد يا فرح وفرح ما قالوا بمحمد عجائب diintiba waxaan ka dhiganayba nasab oo kale iyo midab iyo dhalasho oo kale ma waa afkaar iyo mabaadi iyo aqiido iyo suluukiyad haddaad qaadatana aad xukun ka qaadan muslim hadii laga waa inaad gaaloobi oo laga bixi karo bal labada daqiiqo isku xigta laga yaabo marna inaad gaal noqon karto marna muslim noqon karto soo saas ma wax la yiraahdo ma jiro Soomaali waa Soomaali waxa way gaal wala muslim wala warkaasi inuu cadaado waa laga maarmaano liyahlika man halaka an bayina wa yahman hayya an bayina muslimiinta wax loo qariyo maaha ninkii sida ku galiyo ku dhiman gaalnimada ku dhimo ninkii islaamnimo ku dhiman oo ka carari gaalnimadoona ka carar laakiin waxa la isku qarin nin walba meeshuu ku talagala ku talagalo الله سبحانه وتعالى القرآن كآيات هذا نخريني ومن يتولهم منكم فإنه منهم أئمة التفسير كسيما الطبري غيرك وحليهن ظاهر كذا وحكوزه إنه مرتديه بل سان صور شيء إجماع وحسوق قرنا ابن حزم يغيرك كذلك وحجمع سوق قرنا الشيخ ابن باز الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يسوون وحكود دارين نواقض لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحيالها برية وحكم ده مظاهرة المشركين على المسلمين إن قالوا اللي زود قريب استاكتوا المسلمين وغيلش وردة وردة مسألة سمرك إن هذا يسجل خاصة وقتك هو قال دي أي بشقة كده تواجه ورجالده يدا أنت يسوم متحده هو يبنان كيس صادق تي مسلمين تلد قال مجرد تي هذا ولا بدلي قال هذا ويبدش وحكوا بدش متقنا كور دولكينا كولا midabkiina kula leh diintiina kula sheeganay gaalada barnaamijkeediina fulinay inay gaaladii wakiil ka noqdaan walow sada Iraq maxaa ka socda Iraq waxa ka socday Mareykan iyo ujeedada reer galbeedka fulinay yihiin
soo ciraaqiyiin maaha waa ciraaqiyiin. afghanistan u fiirso barnaamijka yaa fulinaya waa afghaniyiin. jejeniya iyo u fiirso meesha la yidhahdo shishaan waxa fulinaya waa shishaaniyiin jejeniyiin ah. soomaalida u fiirsa yaa fulinaya waa soomaali. brogramkuna waa brogram gaalo. brogramku waa brogram isagu soo dejistay maaha. brogram isagu soo fikiray maaha. brogram uu isagu qorshihiisa leeyahay maaha. waa brogram caalami ah ama maxalli ah gaalkaa wata laakiin isagu waa fuliye. danta marka laga gaadhana sidii qalfoof baa meel lagu tuuri laanna waa lagu meel gaadhay sooma. maalin reer baa madaxa la soo saari, maalin nin baa madaxa la soo saari, maalin koox baa madaxa la soo saari. muhiimaduna waxa waa istiraatiijiya xalaqaad kala dambeeya leh. maalinba xalqad baa fulayso nin lagu gaadhaya markaana waa la tuuraya. ta kale reer baa lagu gaadhi waa la tuuri, reer kalea lagu gaadhi waa la tuuri. xasiiladuna waxa weeyaan dhulkii muslimiinta iyo karaamadoodii in lala tegay. xasiiladu intaasay isugu imaanaysa. mala fahmi. haddii marka la garan waayo gaal kuu soo adeegsanayo iyo isagu inay isku xugum yihiin hadduusan kaba darnayn oo inta muslimiinta loo tabriiriyo la yidhaahdo waa muslime dhiiggiisu waa macsuume dhulkii muslimiinta oo dhan soo kuwaasi qaadan maayaan oo karaamadii muslimiinta oo dhan soo kuwaasi burburin maayaan oo cizigii iyo sharaftii muslimiintu soo lumi mayso. waa lumaysaa shaki male. sidaas daraaddeed sida rabbi u caddeeyey alwalaa walbaraa aayadaha qur'aanka ku soo arooray culimmada islaamku say leeyihiin sida ay u faahfaahiyey qur-aanku ee uu kala dhigdhigay iyo inta aayadaga ku soo aroortay abwaabta intay ku soo aroortay waa yarta. masalada cinaayada iyo dadaalka la siiyey xataa wax kale iska dhaaf inaad jaajuus noqoto u shaqeeya oo wararka u soo gudbiya wararka muslimiinta iyo cawradoodii iyo meelahay ka jiracsan yihiin iyo warka siiya ayaa culimmada qaarkood waxay qabaan inay riddato islaamnimada ka bixid ay tahay. xadiidkii xaatib ibn abi baltaca oo warka ku jira aad u dheeryahay ayay qaarkood u daliishanayaan inuu murtad yahay. waxayna u daliishanayaan xadiidka riwaayaadkiisa marka la ururiyo hadda majaalkan inoo saamaxaynin. xadiidka riwaayaadkiisa marka la ururiyo cumar markuu yidhi rasuul ilaahi ow aan dilo markii hore iyo xaatib hadalkiisa iyo nebiga taqriirkiisa intaba waxaa laga garan bay leeyihiin inuu ku dhacay shay riddo keena. mar labaad markuu nebigu yidhi run buu idiin sheegay haddana cumar mar labaad buu yidhi aan dilo rasuulilaahi ninka sirtii islaamka fakiyey gaalo u gudbi aan dilo. markaa labaad waxay ahayd baa la leeyahay cumar markuu nebigu u sheegay inuusan ridoobin markan dambe wuxuu leeyahay aan dilo u leeyahay waxa weeyaan gaalba yuusan ahaanin laakiin isagoo muslima haddana wuxuu galay wuxuu dil ku mudanay. laba goor buu ilaan cumar codsaday sida riwaayaadka marka la ururiyo ku sugan inuu dilo. marka horena liridda buu u dil rabay markan dambena lilxad. saasay leeyihiin marka riwaayaadka xadiidka la ururiyo culimmadu. xataa tajasuska walow jamaahiirtu ay qabaan masalada in tafsiil la geliyo imaam maalik iyo keyrkiina ay qabaan inay mas'aladu ay u noqonayso xaakimka iyo mas-uulka muslimiinta hadduu dilayo hadduu daynayo intaba haddana waa nooc ka mida muwaalaadka gaalada la weli siinayo wilaayada la siinayo nooc ka mida. allahna subxaana wa tacala waa ka qur-aanku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa war cadowgiiyo cadowgiinna weli ha ka dhiganina. cadowga mu'miniinta iyo cadowga ilah waa isku mid. wixii ilaahay cadow u ah mu'miniintana waa cadowgood soo maha. wixii mu'miniinta cadowgoodana waa ilaahay cadowgiisa. malakul jibriil markay yahuudi la collowday ilahay muxuu yidhi man kana caduwan lillahi وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين صومدين جبريل هداد لعلودين حول إلهي باتين بالي هداد مؤمنين تلعلودان حول إلهي باتين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة شعيد إذنكو سيني أو توري وقد كفروا بما جاءكم من الحق iyagoo ku kufriya xaqa idin yimid kitaabkiina iyo diintiina la dagaalamay. ayaala la yaab kale waxaa ka mid ah tawaa'iftan hadda gaalada la socota ee gaalada garab taagan ee dadka ahlu diinka iyo culimmada iyo dadka akhyaartaaba la dagaalamaya keliya ma aha ujeeddadoodu u fiirsada
keliya ujeedadoodu ma aha dad intay muslimiin mustaqiimiin oo toosan yihiin haddana gaalo un soo kaashaday ma aha laakiin dadkan aad arkaysaan waa dadkii lagu kari waayey war diinta ilaahay xukun ka dhigta waxay ka dagaalamiba waa diin ilaahay inay xukun noqoto soo saas ma wax laga dagaalami ee intaasi loo ordayaba kitaab ilaahay yuusan dhulka ka talinin sunna nabi maxamed iyo ummadda u talinin dastuurkii reer galbeedka iyo faransiiska iyo muxuu ahaayey maraykanka iyo ingiriiska ha lagu xukumo dimuqraadiyadii calmaaniyaha ka taliso diin ilaahay ma arki karno war maxaa shareecada ku diidantiin ilaahay diintiisa maxaa idinku diray ma rabaan war xataa haddayna gaalo soo raacin oyna gaalo garab siinin oynan muslim xabad ku ridin oyna dhiig islaam daadinin keliya inay diin ilaahay in laysku xukumo diidan yihiin intaasaa gaalnimo ugu filan xataa haddaynan xaraka dhaqaajinin laakiin meeshiisa uu ku qabo diin ilaahay layskuma xukumi karo oo kitaab ilaahay ma talin karo oo sunno nebi ma talin karto oo waa wax laga tegay oo adduunku wax kale meel kaluu maanta maraya xidigaha iyo dayaxa la degaya adiguna waxaad leedahay 1400 sano ka hor diin soo degtay iyo mabda laga tegay qaadaan leedahay meeshaasuu gaal ku yahay intaasuu kaafir ku yahay murtad ah hadduu ku darsaday waxyaalahan kale oo dhanna haddana maca dalika weli waxaa la taagaya waa muslim macduur ah war yaa gaaloobi markaas ya waa su'aalayaa gaaloobi diin ilaahay ma ogola xukumkeedii ma ogola kitaabkii ma ogola wuu ka dagaalami naf iyo xoolo isugu geyn gaalu u soo kaxaystay garab buu u helay waxba ma reebanin haddana weli waxa lagu waa muslim macduur ah yaa gaaloobi waa su'aale caqiidatul murji'a nimankii murji'a la dhihi jiray caqiidadoodu murji'a waa agtooda wax ka gaaloobaba uusan jirinba xataa hadduu wax kasta qasto waa muslim bay ku leeyihin caqaa'idul murji'a baa dadka u dhuntay oo u qarsoomay qur-aanka iyo sunnada iyo hadyigii salafka ridwaanullahi calayhim marka loo noqdo masaladu masala waadixa wa shaykhul islaam ibn taymiya calayhi raxmatullah markay tataarku ku soo duuleen caalamul islaami majmuucul fataawaga iyo qeyrkii siduu kaga hadlayo tataarku waa nimankii maquuliyiinta la dhihi jiray ee bariga fog ka soo duulay caalamul islaami oo dhan bay qabsadeen ilaa waxay soo gaadheen meesha la yidhahdo baqdaad oo caasimaddii markaa muslimiinta ahay way qabsadeen iyadiina waxaa soo hadhay shaam iyo masar iyo xaramaynka iyo labadaa meelood baa lagala dagaalamay markii lala dagaalamayay tataarku waxay ka koobnaayeen nimankii xagga ka yimid oo gaalo ah kuwa raafida ah oo shiico ah oo ku biiray shiicadan hadda la yidhaahdo iiraaniyiinta Soomaaliya iiraaniyiinta tataarka waagaa way la socdeen haddana maraykanka waxa keenay ciraaq waa iyagii soo moogid taariikhda shiicada marka dib loo raaco iyagii iyo gaaladu weligood way isku lamaayeen ibn al-Alqam nin la odhan jiray baa baqdaad markii soo galay tataarku oo khaliifka muslimiinta la taliya u ahaa qoladan gaaladana hoosta kala jiray tataarkan hoosta kala jiray baa soo galiyay baqdaad tataar soo galiyay shiici buu ahaa shiicadaasaa ku biirtay oo garab socday tataarka kuwa muslimiin ahaa ma cabsi baa u geysay ma baqdin baa u geysay ma ninkan xooga badan baa iska raaceen kuwa muslimiin ahaa oo tukan jireen iyaguna safkay ku biireen saddexdaa qaybood baa soo wada galay dagaalka shaykhul islaam ibn taymiya calayhi raxmatullah wuxuu yidhi saddexdooduba waa murtadiin buuri kuwa horta gaalo asliyiin ahaayeen waa tataarkii raafidaduna markii horeba diin ma haysanin kuwan tukan jiray ee safka soo galayna ayagana diin ma laho way ridoobeen isku si ha loola dagaalamo bal culimadii muslimiinta waagaa noolay taariikhdaasi markay dhacday waxay isku waafaqeen dadka tataarka soo raacay inay xukunka tataarku kala leeyihiin